gabadha wax ku jira maxaa tihiin sixir waa u heshiinay xalaqada maanta ciwaankeedu waxa weeye awoodda shayaadiinta ama jinka iyo cabsigelinta cilaaj leyda سحر 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 استاذ هوري استاذ 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 ما يضرهم ولا ينتفع عن الإبداع استاذ ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما يشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ciwaanka ka hadli doona waxa weeye qaabkee ayaad iskaga daaway kartaa xasadka iyo jinka jirkaada ku jiro haddii aad og tahay iyo haddaadan ogeynba billaahi tallaahina bay idin sheegin maalin hooyo ay timid hooyo masaakiin ay timid waxay tiri ninkeyga markuu i guursanayo maanan ogeyn inta cunugaa dhala xataa kama warhayay tiri inta cunug ee aan dhalay kama warhayay bay tiri bal ilaahay baa kugu dhaashay ka waran. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسنا وعن ميل كستا أدونك جوكتان كسو دوادا برنامج كيني تحناها ها أنا أقوم قاعدرني حقيقة حرمها علاجك يو غرغاري دا ولا لها دباتيسن barnaamijkii hore aan soo gudbinay runtii wuxuu dadka kala kulmay qabuul iyo ogolaasho aad iyo aad u ballaaran dad fara badanna way inooga mahadceliyeen fariimo badanna waana la soo gaarsiiyey dhinaca kale waxaa cabaad soo jeediyey ama ka xumaaday ragga haysta xarumaha cilaajka oo u arkay in weerar lagu soo qaaday waxaan rabaa walaalayaal inaan laba arrinba hoosta ka xariiqo marka koobaad ilaahayna igu ogyahay nimanka xarumaha cilaajka haysta shakhsiyan ma aqaan waxa ay gacmaha kula jiraan ay maaragtay ka shaqaystaan waxaanu ka aragnay baraha bulshada iyo dhibaatada dadka haysata marka walaalayaal niyadda khayr u sheega anigu waxaan rabaa inaan idin saxo oo ilaahay dartiis wax idinkugu sheego idinkana aad dhibka ka dhaaftaan walaalihiin dhibaataysan inaad dhibka dhib ugu siyaadisaan ayaan horta ujeedkeenu yahay ganacsigiina weerar kuma ihi xarumihiina cilaaj kuma soo socdo oo intaa meel kala furto oo iraahdo meeshoodu way khaldan tahay meeshayda ayaa saxsanna maahan ujeedku wuxuu yahay in dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xiro dadka aan dhibaatada qabinna inaan dhibaato loo horseedin ayuu yahay dhinaca kale waxaan rabnaa walaalaha dhibaataysan oo xaqan way dhibaataysan yihiin in loo gargaaro oo runta loo sheego isla markaana wixii ay ku badbaadi lahaayeen ama caafimaad ku heli lahaayeen aanu ku hanuunino oo nu tusno intaa kadib xalaqada maanta ciwaankeedu waxa weeye awoodda shayaadiinta ama jinka iyo cabsigelinta cilaaj leyda dabcan horta waxaan isweydiinaynaa shaydaanka ama jinka awood noocee ayuu leeyahay insaanka miyuu la wareegi karaa qalbigiisa miyuu qabsan karaa wax uusan rabin miyuu ku qasbi karaa dabcan dadkan la hadlaya waa dad muslimiin ah waa dad rumaysan qur-aanka waa dad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran laakiin iimaankoodii u daciifay haddaba haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala rumaysan tahay haddaad qur-aanka jeceshahay bal dhegaysa aayadan qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaytaani alrajiim إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون aayadahaas quraanka kariimka oo ka tirsan suuratu naxli ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay marka aad quraanka akhrinaysid ilaahay ka magan gal shaydaanka la fogeeyey ee la nacladay maxaa yeelay innahu laysa lahu sultaanun cala aladiina aamanuu waa marka koowaade wax awood uu ku leeyahay ama uu dhib ugu geysan karo ma jirta kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey laakiin kuwa sifo gooni ayay leeyihiin wa calaa rabbihim yatawakkaluun oo rabbigood tala saarta walaalayaal waxaad moodaa tawakulka inuu naga maqan yahay haddaad ilaahay rumaysan tahay haddaad qur-aanka rumaysan tahay haddaad aaminsan tahay in qur-aanka lagu dawoobo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay wax awood uu shaydaanku ugu leeyahay ma jirto rabbigeen intaas kumuusan aamusin oo nagamuusan gaabsanin oo dadku waxay isweydiin lahaayeen haddaa yuu awood ku leeyahay uu shaydaan u taliyaa ilaahay wuxuu leeyahay innamaa sultaanuhu cala aladiina yatawallawnahum wuxuu awood ku leeyahay kuwa asaga dabagala oo tala saarta oo aamina oo aaminsan inuu shaydaan ama jin wax ka taray kuwaasi ayuu horta awood ku leeyahay waana kuwa dhibaatada ay haysato ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay suuratu acraaf innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaythu laa tarawnahum
إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إلهي سبحانه وتعالى وحليه الشيطان كوحان ولي وقدقني صاحب وقدقني إيا إنو مامولو كو آنا حق رميسنين وإلهي أنكو حرنين إلهي آياتك اللي حكول ليهي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلهي وحليه الدومدي إذا وح أود أتكل هذا هبيراتي مجرتو سيدوك لإلهي سبحانه وتعالى وحنو شيء إن كيد الشيطان كان ضعيفا أود الشيطان وحي أهاتي نقرت الشيطان وحي أهاتي من ضعيفة هذا بقى شيطانكو يجنك هرت الشيطان يجن محيكو كل دوين شيطان كاد مقشان جنك أيو كمد هنجري إلهي وحلي كان من الجن ففسق عن أمر ربه جنك أيو كمد هنجري لكن وحو كحب سيبتي أو كو أمر ديني الله سبحانه وتعالى مركا واقيب كمد شيطانك واقيب كمد جنك مركا نوعي بدن أيو ليهي oo qaybo kala duwan ayuu leeyahay muslim ayuu leeyahay kaafir ayuu leeyahay laakiin wax awood ay bilaadanka ku leeyihiin haba yaraatee ma jirto haddaba haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala rumaysan tahay haddaad qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran tahay waxaad ogaataa oo aad aamintaa shaydaanka inuusan awood kugu lahayn haddii aad aamintid inuu shaydaan kugu taliyo oo uu kugu jiro oo uu kaa dhex hadlayo oo uu ku maamulo waxaad ogaataa in aad dulli ku sugan tahay waxaad ogaataa inaad naftaada dhib u geysay هذا شيطان كوجدي سمحي تاي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه شيطان كاسي وشيطان بولاي إلهي ليهي وحدولي إنو يدن كو عبسي قليا صاحب بديس أن بنا مركا فيرسد إلهي سبحانه وتعالى مركا ومؤمنين تكرر بإني يقولي وقفق عن قفك كالي محو إلهي سبحانه وتعالى ليهي يعني الشيطان كوجدي سدن وحوي ليحزن الذين آمنوا in uu muruga geliyo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey haddaba haddaad aamintid inuu shaydaan kugu dhex jiro oo kaa dhex shaqaysanayo oo adiga ku maamulo aad isu dhiibtid xaqiiq waxaa weeye waxaad aamintay ayaa tahay haddaba waxaanu halkan ka cadaynaynaa shaydaanka inuusan lahayn awood ka baxsan inuu qofka waswaasiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas min shari lwaswaasi alkhannaas alladii yuwaswisu fi suduuri nnaas kaasi waa kee min aljinni jinka ayuu ka mid noqon karaa wannaas iyo dadka qaar waxaa jira ku waswaas gelinaya ku cabsi gelinaya haddaba awood uu shaydaan leeyahay haba yaraatee ma jirto intaasi markaa ogaatid waxaa jirta cilaajlayda in ay leeyihiin ay dadka cabsi geliyaan inay abuuraan sheekooyin been abuur ah in ay duubaan fiidiyoyaal ay dadka mataqaana ku cabsi gelinayaan waxaan idin akhrinayaa qayb ka mid ah mawaadiicda ay ka hadlaan ama ay soo geliyaan youtube-ka ama ay live-ka ka soo daayaan runtii markaa maqashid waad yaabaysaa mid ka mid ah cilaajlayda wuxuu ku leeyahay calaamadaha jinka aan jirkaada ku jirin ee korkaa la socda yaa salaam wuxuu ninkaa og yahay jinka ku widwidaysta oo ku gaadgaadaya oo raba inuu mar talaq ku dhaho ya sheekadaas ayuu wuxuu ku leeyahay bal asaga yaa u sheegay miyuusan adigoo kala ahayn indhaha yaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaythu laa tarawnahum jinka iyo qabiilkiisa iyo shaydaamiinta waxay idinka arkaan meel aydan ka arkaynin annagu jinka ma aragno asaga ninkaas yaa u sheegay jinka oo yidhi arag uu ka gudbay ciwaan kale uu samaystay wuxuu yidhi qaabka ugu fudud ee jinka xasadka ee jirkaada ku qarsoon isaga saari karto wallahi billahi raggaas waa cajiib ciwaankiisa ciwaan la yaab leh waa jinka qarsoon hadduu qarsoon yahay jirkaada gudihiisa ayuu ku qarsoon yahay wuxuu rabaa inuu kuu sheego sidaad iskaaga saari kartid walaalkayga muslimka ah miyaysan kuu caddayn raggaas inay rabaan inay ku cabsi geliyaan waxay kaloo soo qoraan qoraallo badan ay ku fasiraan riyooyinka haddaa ku riyootid mas haddaa ku riyootid bad haddaa ku riyootid lax haddaa ku riyootid gaari haddaa saas tiraahdid laa xawla walaa quwata illaa billaahi alcaliy alcadiim haddaba dhagaystaha sharafta leh walaalka yaqaana qof ee dhibaatada haysata laba arrin baa kuu sheegayaa oo barnaamijkan kusoo koobayaa ko shaydaan wax awood uu kugu leeyahay ma jirto jin wax awood uu kugu leeyahay ma jirto haddaad adiga aamintid adaa aaminto isdhiibtay wey cilaajlayda ayaysan idin cabsi gelinin waxyaalahan ay akhrinayaan waa khuraafaad waxba kama jiraan bal qaarkood waxaanu awoodnaa inaan dhahno dajaaliin baa tihiin kadaabiin baa tihiin maxaa yeelay waxaad been ka sheegaysaan inaad dadka cabsi gelisaan wuxuu ku leeyahay jinka korkaa wiidaysanaya ya
اللي والله بالله الناس راح عيدان قاضها يا مركا جانس يلا درخسينا تسلا وديبا اوكي intaas waa iska kaftan barnaamijka dambe insha Allah taala waxaan ku soo gudbin doonaa xaqiiqooyin dhab ah oo ku saabsan cilaajka waxaan ka codsanayaa in aad tii gaarsiisid walaalaha in aad ahalkaada kala hadashid in aad asxaabtaada kala hadashid ragga cilaajleedan waxaan leeyahay walaalayaal waan idin naseexinaynaa quraanka waa la isku daweeyaa laakiin qaabkaad u shaqaysanaysaan ee aad lacagta ku guranaysaan ee aad dadkan ku waasheen ee aad ku cabsi gelinaysaan waxba kama jiraan joojiya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh